السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال waxaynu muuqaalkan ku eegi doonaa nin soo saara aalad turjumi karta codadka bisadaha. injineer hore uga shaqayn jiray shirkadda Amazon isla markaana ka caawin jiray dhanka iyo codadka oo lagu magacaabo Alex ayaa soo saaray aalad ama app fasiraya codadka ama dhawaqa bisadaha. aaladan oo lagu magacaabo Meow Talk ayaa duubaysa codadka bisada kadibna go'aan ka gaaraysa oo turjumaysa micnaha shanqarta iyo codka ka soo baxa bisada. qofka iskale bisada ayay arintan waxyaabo badan ka caawinaysaa isaga oo ogaanaya qaar ka mid ah waxyaabaha ay bisadiisu u baahan tahay. aaladan ilaa iminka waxay turjumi kartaa oo kaliya 13 jumladood oo ay ka mid yihiin iqoodi, gaajo ayaa haysa iyo banaanka iga mar. cilmi baaris la sameeyay ayaa muujinaysa in bisadaha sida bini'aadamka oo kale aysan wadaagin luqad ay isku gartaan. bisad kasta codkeeda waa gaar, waxaana aaladan loo sameeyay si codka gaarka ah ee bisada uu macnayn karo. arintan ayaa looga maarmayaa in la sameeyo aalad kaliya oo lagu saleeyay cod kaliya oo macneeya cida bisada, laakiin waxaa loogu talagalay in uu bisad kasta codkeeda gaarka ah uu garan karo. Jeff Sanchez oo ah agaasimaha shirkadda sameysay aaladan ee loo yaqaano Actifelton ayaa yiri waxaan u maleynayaa in aaladan si gaar ah muhiim ay ugu tahay xilligan sababtoo ah dadka la yiri kala fogaada iyo dadka oo inta badan guryahooda jooga, marka waa muhiim xeewaalada guriga kugula nool sida bisada inaad fahantaa. waxay tani u suurtagelinaysaa in ay xiriir la sameeyaan bisadahooda amaba ugu yaraan waxa ay doonayaan, taasi oo isku soo dhaweynaysa bisada iyo qofka iskale ayuu intaasi ku daray. aaladan ama abkan ayaa waxaa lagu heli karaa si bilaash ah, gaar ahaan haddii aad haysatid taleefanada casriga ah oo aad la soo degi karto. waan soo dejistay balse ma isticmaali karo, waxaan dareemayaa caro, waxaa sidaas yiri mid ka mid ah dadka isticmaala aaladan. qof kale oo isticmaala ayaa yiri waxaan helay turjumaad aan 90% aad u jeclaystay. haddaba daawade haddii muuqaalkan aad ka heshay fadlan waxaynu si naxariis leh kaga codsanaynaa inaad sii sheer gareyso oo la wadaagto asxaabtaada. mahadsanid.